halkan waxay dhowr tilaabo u jirtaa halkii uu qaraxa ka dhacay ee u dhow barta control ee ciidamada ilaalada madaxtooyada ay ku leeyihiin taalada sayidka ee Muqdisho sida idin muuqata kuwan wariyaashii Muqdisho ee warbaahinta gudaha iyo dibadda ka shaqeynayay waa loo diiday gabi ahaan inay tagaan bartii uu qaraxu ka dhacay si ay wararka iyo xaqiiqada jira uga soo tabiyaan wariyaashu wali waxa soconaya sanadka 2020 cadaadiska ay sida joogtada ah ula kulmayaan waxaase xusid mudan halka uu qaraxu ka dhacay in ay ku dhamaadeen dad badan oo shacab ah kuwaasi oo wadada isticmaalayay gaariga qarxay waxaa sida xogta lagu helay ka mid ahaa gaadiid ku jiray safka baaritaanka ee ugu jiray askarta si ay u baaraan barta control ee sayidku ay ku leeyihiin ciidamada ilaalada madaxtooyada waxaa jira bajaaj meesha mareysay iyo gaadiid kale oo qaraxa ku burburay kuwaas dadkii saarnaa ay dhinteen kuwa kale oo badan ay dhaawacmeen goorma ay ku ekaan doontaa cadaadiska saxafiyiinta laga saarayo inay soo tawiyaan dhacdooyinka qaraxyada u badan ee Muqdisho ka dhacaya shacabkuna ay u baahan yihiin inay ogaadaan